السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب شرفت لك kusoo dhawaada mar kale casharkeen imtixaanaha maanta cashar cusub ayaan idin wadnaa. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay how to introduce yourself, sida la isku sheego markii lagu yeero shir ama shaqooyin ama interview markii lagu yeero sida qaabka isku sheegi lahayd ayuu ku saabsan yahay casharkeena. Marka maxaa la dhihi jiray casharka maanta waa cashar aad muhiim u ah, qof kasta ayuu muhiim yahay. qofka maxaa la dhihi jiray ma ahan casharkii dadka conversationka casharkii bilowga ma ahan, qof kasta ayuu saacideynaya casharka insha Allah. qof kasta ayuu waxtar u leeyahay hadduu yahay qof luqadda ku cusub ama saa luqadda ku shaqeysto ama ku hadlo. qof kasta ayuu aad muhiim u yahay casharkeena insha Allah. casharka ayaan u gudagalaynaa introduce yourself. marka kan casharka noocan marka inta badan waxaa la isweydiiyaa markii shaqooyin aad apply gareysid, hadday tahay aad ka apply gareysid company ama private ama public house ka aado shaqooyinka aad apply gareynayso, inta badan waa la isweydiiyaa oo waxaa lagu dhahayaa introduce yourself. marka casharka aad buu muhiim u yahay insha Allah. casharka marka waxaan u qeybinay 10 points, waxaan u qeybinay 10 qeyb ayaan u qeybinay 10 qeyb marka interviewgaas marka introductionka introduce yourself, how to introduce yourself marka properly, waxaan u qeybinay 10 points ayaan u qeybinay insha Allah taala. marka casharkii aan u gudagalaynaa. Okay, how to introduce yourself, sidee isku sheegi lahayd markaad lagaaga yeero meel shir ama shaqo apply gareysid interview. labadaba marka inta badan dadka isma garanayaan meesha iskugu imaadeen, marka waxaa lagu weydiinayaa introduce yourself wax kasta intii la gaarin ka hor. marka intaas maxaa loo baahan yahay inaan 10kan aan soo sheegi doono aad muhiim u ah yaa laga maarmaan waa qof kasta inuu madax ku hayo. marka first of all marka meel tagtid shir lagaaga yeero ama shaqo lagaaga yeero interview, first of all waxaad ka bilaabaysaa greetings. marka greetings AG, hello, good morning, good evening, good night, xilliga waqtiga la joogo wax ku habboon saa u salaamaysa qofkii u salaamaysa. hadday galab tahay good evening, hadday habeen tahay good night, hadday galab tahay good, hadday subax tahay good morning, haddii kale hello. marka intaas maxaa waaye waa greetings. Number 2, your name, magacaada inaad sheegtay aad bay muhiim u tahay. AG waxaad dhigi kartaa Xasan, my name is Ahmed, my name is Abdi, waxaad doontidaad sheegi kartaa marka magacaada. marka taasna magacaada. Number 2, your name, magacaada inaad sheegtid before wax kale aad sheegin. marka greetingka waxaad ku xijinaysaa magacaada ayaa ku xijinaysaa. Number 3 marka waxaa waaye location waxaa la dhahaa meesha qofka ka imaaday, gobolka hadday tahay tuulo, hadday tahay location meesha exact place aad ka imaatay ama magaalo mas wadan kale. hadda wadan kale aad minaha interviewgaas ku lahayd wax meeshaada ayaa ka imaatay ayaa sheegaysaa. For example, tusaale ahaan I'm from Somalia, waxaad dhigi kartaa Soomaaliya ka imaaday. I'm British, waxaad dhigi kartaa aniga qof British baan ahay. waxaad dhigi kartaa I was born and raised in Turkey, Turkiga lagu dhalaan kusoo barbaaray. dhigi kartaa I grew up in Washington DC, waxaan ku barbaaray Washington. dhigi kartaa marka waxaan for example waaye. marka meesha marka aad ka imaatay ayaa sheegaysaa. Number 4, position and company. marka number 4 qaybta afraad la rabo qofka inuu marka interview looga yeero ogaado waxay tahay wax company positionka uu ka hay iyo company uu ka shaqeynaya, wuxuu ka shaqeynaya, meeshu ka shaqeynaya iyo positionkeeda. taasna aad bay muhiim u tahay. I was worked as a manager at the National Bank dhigi kartaa. marka positionka waxaa manager uu ka ahaa at the National Bank, company waa National Bank. marka waxaan ka soo shaqeeyay as manager, aan usoo shaqeynaa manager ahaan aniga aan u weynaa National Bank ga u weynaa. marka waxaa kaloo dhigi kartaa I worked as a manager of marketing at YouTube. marka intana waxaan ka soo shaqeeyay manager manaha oo ahaa suuqgeeyaha YouTube company-ga. company waa YouTube. marka shaqada aad qabanayso positionkiina waa manager. marka qualification waxaa lahaa qualification waxaa waaye maxaa la jiray qofka wax uu
soo bartay ama qofku uu soo bartay. Marka qualificationka marka waxaa la for example waxaad dhihi kartaa I am about to graduate, aniga waxaan ku dhawahay inaan hadda qalin jabiyo jaamacad. waxaad ku dari kartaa waxaad qalin jabinaysid iyo maadadaad qalin jabinaysid waad ku dari kartaa necessity. marka aniga hadda waxaa waaye for example tusaale ahaan baan soo qaadanaynaa. waxaa kale ku dhihi kartaa example I have a Bachelor of Art degree in marketing. waxaan Bachelor of Art degree ka wataa suuqgeynta ayaan ka wataa. marka qofkaas waxaad dhihi kartaa kaas waxaa la marka qualification. experience waxaa la waxaad qofkan experience waa experience maxaa la qofka intuu experience u leeyahay intuu ka soo shaqeeyay waqtigii uu ku soo qaatay. marka qofka hadduu 3 sano soo shaqeeyay, hadduu soo shaqeeyay 4 5 sano 10 sano 20 sano waa inaad sheegtaa xilliga experience au leedahay. marka for example tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa I have 3 years experience of teaching English language. waxaan haystaa 3 sano oo takhasus ah oo ingiriiska aan dadka soo baray, ama 10 sano oo takhasus ah company aan soo shaqeynay. wax kasta ayaa sheegi kartaa 2 sano 3 sano inta aad takhasus au leedahay. numberka 6aad way taas aad bay muhiim u tahay marka experience-gaas inaad sheegtid. marka numberka 7aad number 7 family. marka familkaada intuu ka kooban yahay waa inaad sheegtid. aydan aad bay muhiim u tahay introduction, introduce yourself markii lagu dhaco aad bay muhiim u tahay. marka waxaad dhihi kartaa I'm only child. marka I'm only child waxay tahay aabay hooyaday ani bis caruur oo camal laga wada. I'm only child aabay hooyaday marka cunuga xaafadda jooga aniga kaliya. haddaad dhahdidna for example kale waxaa kaloo dhihi kartaa I'm one of 4 siblings. waxaan ka koobanahay 4 laakiin aniga I am one of them. aniga waxaan ahay mid ayaga ka mid ah. marka reerka wuxuu ka kooban yahay 4 siblings ka koobanahay, anigana mid ka mid ayaan. marka dadku waxay already dadka meesha kula jooga waxay ogaanayaan familkaada inay 3 kale wali jiraan. marka inaad dhahdid we are my family consists of 3 sisters and 4 brothers. wax looma baahan. marka general names baa isticmaalaysaa inaad specific aad ka dhigtid lama rabo. marka waxaa kaloo dhihi kartaa I'm from a family of 4. waxaan ka imaaday aniga qoys ka kooban 4. qoys 4 ka kooban ayaan ka imaaday. number 8 hobbies. marka hobbies qofku wuxuu jecel yahay, qofku muxuu ku raaxaystaa. marka waxaan dhihi karnaa I'm a big fan of football. waxaan ahay qof aad u jecel footballka ama banoonta lugta laga dheelayo aad u jecel. I'm really like playing tennis. aniga waxaan jeclahay inaan ciyaarta tenniska. marka number 9 age waa inaa qofka agekiisa sheegaa. markii lagu introduce yourself you have to say your age. so I am 25 years old. or waxaad dhihi kartaa hadda qof kale aad ka hadlaysid for example he is a late 30s. hadda dhacdo marka ninkaas wuxuu ku jiraa waxa u dhamaanaysa 30 qeybihii labaad ayuu ku jiraa. marka waqtiga qofka uu ku jira ayaa sheegi kartaa. and number 10 fun factors. fun fact marka waxaa waaye qofku wuxuu iskaargareeyo the almost same hobby and fun factor. marka waxaad dhihi kartaa marka for example waxaad dhihi kartaa I am scared in dark places. aniga waan ka cabsadaa meelaha mugdiga ah. I am really dislike. aniga aad baan runtii ma jecli of swimming ma jecli. dad baan biyaha ka cabsado. marka qofkan for example waxaad dhihi kartaa ma jecli ama wuxuu qofkan aniga waxaan ka cabsadaa meelaha mugdiga. so this is for example waxaad aad jeceshahay ama waxaad necabtahay aad taqaanid aad qornaysa insha Allah. marka casharka marka u dambeysay ayaan briefly aan u kormaraa insha Allah. and how to introduce yourself. marka how to introduce yourself waxaan u qeybinay 10 point. 10ka point waa sida soo socdaan. greetings salaanta waxaa kamid ah good morning, good evening, hello ayaa kamid ah. magacaada qeybta labaad waa inaad magacaada sheegtaa. marka magacaada for example I'm Hassan, my name is Ahmed, my name is Jama. waxaad doontid ayaa dhihi kartaa. and number 3 location meeshaad kasoo jeedid. marka shaqo laisku imaado dadka gobolada nin kasta wuu soo codsan karaa. qofba meel ayuu ka imaaday mise wadan kale mise meel kale. marka qof kasta waa in la ogaadaa markii lagu introduce yourself
marka waan sheegaysaa meesha kasoo jeeda. I'm from Somalia, I'm British, waad dhihi kartaa. I was born and raised in Turkey. I grew up in Washington DC. marka waxa waaye waxaan kasoo jeeda Soomaali, waxaan ahay British, waxaan ku dhashtay aan kusoo barbaaray Turkiga, waxaan ku koray Washington DC. taas marka waa example-ada aan soo qaadanay. Number 4, position and company. marka meel ka shaqeynaysa position company waxa la wax soo qabatay, booska ka soo qabatay, company-ga ahaayeen yaa sheegaysa markii lagu dhahan introduce yourself. marka I was worked as a manager at a national bank. waxaan ku soo shaqeeyay manager aan ka national bank, bangiga dhexe ayaan waxaan ka soo ahaa manager. marka waxa position iyo company markii lagu dhahay, marka positionki waxa way manager ka ahayd, company waa national bank. I worked as a manager of marketing at YouTube. marka waxa kale oo dhihi kartaa waxaan ka soo shaqeeyay manager aan ka ahaa suuqyada YouTube-ka. marka YouTube waa company, manager waa position ka haysto. Qualification, qofka minaha wuxuu bartay, maxaa qualification uu leeyahay. marka I'm about to graduate, aniga waxaan ahay qof graduate gareynaya. For example, I have a Bachelor of Art degree in marketing. waxaan ka haystaa art of degree, aan ka haystaa suuqgeynta. marka experience number 6, experience marka I have 3 for example waxaa la takhasuska waxaad minaha aad experience u leedahay, waxaad minaha aad soo qabatay oo minaha ogtahay wax ka taqaanid baa la dhahaa. marka I have 3-year experience of teaching English language. waxaan haystaa 3 sano oo aan soo baray luqadda Ingiriiska, experience aan ka haystaa. marka number 7, family-ka intuu ka kooban yahay kuma garanay inaad kaliya tahay, inaad dad leedahay, inaad dadka dambeeyo waa in la ogaadaa. marka I am only child, hadda dhahayd adiga bisa family aabihi hooyo markii laga yimaado adiga bisa joogo, carruur kale ma joogto. I am one of 4 siblings. aniga waxaan ka koobnaa walaalahayga oo 4 ah, mid ka mid ayaan ahay. waxay yihiin ma sheegaysid, gabadh iyo wiil inaad sheegtid muhiim ahaan. I'm from a family of 4. I'm from a family of 4. aniga waxaan ka imaaday family ku kooban 4 qof. so inaad ayadan sheegtid waxay yihiin muhiim ahaan. so hopes, marka hopes qofku wuxuu rajeynaa rajadiis waxay tahay hobbigaada, hobby saa u taqaanin. I'm a big fan of football. أنا waxaan qof football ka jecel. I'm really like playing tennis. أنا waxaan jecel inaan ciyaaro tenniska. Age, iyo number 9, age sanadka. I'm 25 years old. Hadii kartaa I'm 35 years old. I'm 45. nin kasta iyo age-kiisu waa inuu sheegaa, isna muhiim baa igu tahay. marka fun factor marka oo kale iyadana waxay tahay I am scared in a dark places. aniga waxaan ka cabsadaa meelaha mugdiga. for example waxaad dhihi kartaa I am really dislike of swimming. aniga ma jecli dabaasha, swimming ma jecli. I am really dislike of swimming, ma jecli inaan dabaashto. waxaan filayaa inuu qof kasta cashar ka faa'iidaystay. casharka insha Allah halkaa ayaan ku joojinaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.